بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاسترا فيتوريا سيمبر قياشة ميلبا تشوكتين وعربا إنا نوهم باليو تشيل كسدحات قياشة سراكيش إذا ماذا كتشرو تركي وحكو برتا ذا ودك وحكو برتا وحبو هدان تاريخ دي بقوصة نقول كوني سقال بقول لحدني سدح دي لبيت وانك أبريل وحال أساسي ciidamo militari ah xoogga dalka Soomaaliyeed. Soomaaliya waxaa jiri jiray ciidamo gumaystaha u shaqeeya ee ahay dagaaladii Second World War Koofi Dhuub la dhahay ilaa waqooyi ilaa meelba. Waxaa jiray ciidamo infantry ah laakiin Soomaaliya macruuf ku ah waxaa jiray police iyo carabinieri ee Francisco yaqaaniin gendarmerie. ciidamada Soomaaliyeed ee la aasaasay 1963 12 abriil waxay hayeen ciidamadii gumaystayaasha. waxaa madax looga dhigay Generaal Daawud siyaad bar ku jiro deeqliqad ku jiro rag badan ku jira deema ayeen ciidamo xorriyadda wax ka soo qaatay ama soo halgameen. ciidamo waxay hayeen gumaystaha u shaqeeyo, ciidamo waxay hayeen dili jiray Israel, ciidamo waxay hayeen la dagaalami jiray shisheeye u shaqeyn jiray Soomaali la dagaalami jiray xorriyaddiidii jiray. marka wax looga celebrate gareeyo 12 abriil ma jiro. ciidan Soomaali waxa ugu horeeyay 69kii waagii siyaad bare iyagana waxay geysteen waa la wada ogyahay. ciidanka Soomaaliyeed waxa ciidan ku shaqeeya qabyaalad iyo wax walba iyo dhibtay ogeed ay geysteen. ciidanka Soomaali waxay burburiyeen Somaliland dadkay u dhaarteen ee xuduudada ilaalin jireen. weligeed waa la ogyahay ciidamada Soomaaliyeed waxay hayeen ciidamo faashil ah. marka maanta farmaajo wuxuu isku dayayaa siyaad bare inuu samaysto ciidamo asoo wato saraakiil diaspora asoo wato wax walbo ciidan ajnabi ku dhisayo iyo dad kale ku dhisayaan. Shariif Jeeg ba ka hadlay waaba ka shifantihiin. marka waxaan nii sheegayaa ciidamadu maanta maaha ciidamo xoogga dalka Soomaaliyeed, waa ciidamo Moryana, waa ciidamo saraakiishooda diasporiyiin, waa ciidamo ajnabi amarka qaata, waa ciidamada xeebta jaziiro wax lagu barayo xalane ee shisheeye u shaqeeyo, waa ciidamo MIC ah oo ingiriiska u shaqeeyo basaasiina. marka waxa weeyaan Soomaaliya waxba ka qaldan, dowlad dibadda lagama dhiso. ciidanka uu Turkiga tababarayo waa Ismaaniyiin dantii wax u barayaan. ciidanka Imaaraadka sidoo kale. ciidanka Soomaaliyeedna waa ciidan loo togsado la subiyo guddiga taakuleenta. marka waan ka xumahay 12 abriil waxay ku soo beekantay maraan ciidan jirin, Soomaali ciidan jirin, waxna jirin oo farmaajina ku riyoonayo inuu siyaad bare ciidan xoog qaba samaysto, waddanka xoog ku qabsado oo ciidamadii baarlamaanka ay galeen wax walba ay galeen. dhibaato badan ay jirto waa la wada ogyahay. marka waxaan nii sheegayaa Soomaaliya waa masrax, waa rubaayad aan jirin. ciidanka lala hadlayaa, ciidanka hadlaya, ciidana tababartay, ciidana halkaas tababartay. haddana waxaa laga hadlayaa oo wasiirkii Turkiga tago soo boqonayo meel walba iyo diyaaradihii la sameynayay Somali Airlines la soo celinaya. de kulli waa isku show speed. maxaa diyaarad laga fikiraa Somaliland Soomaaliya laga fikiraa diyaarad inay yeelato Somali Airlines la soo celiyo ee calanka dibadda ugu soo wareegso. nimankii tuugtay diaspora hadlaysa cidro soo garanaya inanka habargeeda. marka waxa weeyaan waa been meediyada laga wado, dowlad meediyada ka jirto. villa Soomaaliya hoosteeda lagu baahsan yahay, dadka barakacsan yihiin, dadku way dhibaataysan yihiin, gaajaa jirto, iskuul ma jiro, majaari lama qodin, infrastructure ma jiro, waddo ma jirto. waxaa laga hadlayaa cirka inaan marno, dhulkiiba ma joogno, dadkii waa qaawan yihiin, askartiya cagcad. marka waxa weeyaan waa wax show lagu dhigay oo la dhahayo Somali Airlines la soo celinaya, diyaaradihii Somali Airlines soo noqonayso, waddankii wuu hagaagay. waa dowlad meediyada ku dhisan, wax jira maaha. shacabku Soomaaliyeed waxaad u ballan qaadeen nabad iyo nolol. nabadii adinka haysto Amisom aan ilaaliso, noloshii adinka haysto lacagtii la soo sadaqaysta cunaysa. shacabku nabad ma haystaan, nolol ma haystaan. maanta Baraawe baa qarax ka dhacay, ilmo kubad cayaaray magaalada dhexdeeda, isbartibada dhexdeeda. Baraawe weligeeda kubad lagu ciyaari jiray, dhalinyarada ku ciyaari jireen, isbartibada way la hadli jireen. wax qarxay ma miina ku dugno. had
haddaa lagu duugo lagu baabi'inayaa dadka baraawe marka waxa weeyaan intay baraawe maqan tahay shabeellaha hoose maqan tahay banaadir dulmi jiro guryaha dadka la haysto beeraha la haysto wax walba la haysto intadii dadka la haysto dee wax hagaagaya male ilaahay dulmi ma ogolo nafteedaan dulmi u diidaas dulminaa tiri shacabka soomaaliyeed 75% populationka waxaa weeye aalta juba iyo baasa juba waxaa weeye lower shabeelle webiyada weeyaan way wada dhibaataysan yihiin waa la haystaa waxaa maanta laga hadlayay shalay laga hadlayay galmudug way hagaagto oo loogay samaysteen oo calanay samaysteen oo kanay samaysteen oo dhusmareeba caasimada laga dhigay waxaa cabaadayo saleebaana cabaadayo reer saleebaan waxay leeyihiin xuduudkaa xiranay galmudug ma soo geli karto kama soo geli karto waxaan oranayaa reer saleebaan waxa weeyaan eeyo waa kilaab waa il lupo cambia il pelo ma non il vizio ilaa madaxweynaha tegoo soo maray meel walbo maantana waxay leeyihiin dhusmareed nooma soo geli karto madaxweynaha sooma geli karo dowladda galmudug sooma geli maxaa dhacay dee habar gidir iyadaa dulmi ku jirto saleebaan wuxuu haystaa xamarweyne ceer iyo saleymaan iyo sacadba waxay haystaan shabeellaha hoose iyo meelba marka dhibaatadu dalku way weynta raggaa ee habar gidir la dhahone waa eeyo dad cuna kaane lupo waa il lupo cambia il pelo ma non il vizio weligeed lagama yaabo inuu habar gidir sheekh iyo mu'min yeesho cadaalad ilaaliyo never waa tuug xaaraan buu kusoo koray marka militarigan la buunbuuninayo waxaa la sheegayo qaar ay imaraadka leeyihiin qaar turkiga dababarayo wax dababarayo kaniyo dee waa berigii brotalyaaniga oo raggii dabadhififka ahaa ciidamo laga dhigay jenaraalo laga dhigay maxamed siyaad baro dadka garaaci jiro oo sl garaaci jiray iyo jenaraal daawud oo dadka leen jiro oo israel layn jiray laga dhigay marka dambe ciidanka soomaaliyeed marka waxaa loo baahan yahay in restoration lagu subiyo hadduu ciidan yahay hadduu shacab yahay hadduu dal yahay soomaaliya waxay kusoo naqon kartaa iyadoo dulumka lagu hayo shabeellaha hoose la joojiyo maanta waxaan la hadlayaa jawaariyaan la hadlayaa dhibta ugu weyn meeshay kaa soo gaartay reerkaagaad ilowday sadaqada waxay ku kacdaa reerkaaga dhibta ugu weyn soomaalinimada aad raadinaysay waxaa ka horeysay reerkaagii oo dulunsanaad ilowday jawaari waxaad ilowday shabeellaha hoose waxaad ilowday baraawe waxaa ilowday baayo bakool wax walba waxaa ka dooratay inaad aqalo ka dhistid baydhabo iyo guryo ka dhistid xamar iyo aada shaqaysto UNDP da iyo wax walba aada la shaqaysay dantaadii unbaad fulisay maantana adiga kugu soo hoobatay marka waxaa oranayaa jawaari waxaa looga baahanya inuu tooba keeno waxaa looga baahanyaa inuu maanta xildhibaan waayo uu ka hadlo shabeellaha hoose waxaa loo baahanya inuu dhibka baraawe ka hadlo ka dhawaajiyo waxaa loo baahanyaa inuu baayo bakool ka hadlo waxaa loo baahanyaa inuu baarlamaanku ka doodo waxaa loo baahanyaa inuu maanta ku dagaalamo shariif sakiin si uu waddankaa uga qaban lahaa ninkii waxyeelay waa shariif sakiin marka waxaa weeye labadii laqdaba ku heshiisa lilaahaday ku dagaashaa jawaari waxaan ku waanin lahaa inta cimrigaaga ka dhiman toobakeen ama masaajidka gal siyaasad ka bax ama haddaad siyaasad ku jiraysid isax shabeellaha hoose baraawe marka banaadir baayo bakool inaad ka hadisho digili marifi xuduudkooda waxaa weeye 4 rukun marka waxaan u soo jeedinayaa soomaalidu 12 abriil tuuto gashtay farmaajo oo saan ugu hadlay khayraa tuuto gashtay kulli waa been waa huhaa waxay doonayaan inay subsadaan ciidan uu ku aargoosto uu ku maquuqiyo hawiye hira dee ma dhacaysataa siyaad baro kaa xaniyo weynaa ayay taa u suroobi weysa waxaa la yidhi hadda ka hor waxaa la yidhi islaam baa inankeeda ciyaarsiinaysa inankii see u ciyaarsiinaysa soo boodo buurida u soo biciyo huh buu ku yiri islaanta waxay ku tiri waryaa ma kuu sheegaa aabbaha uu kaa gusweynaa arkay waxaa tahay ma lahayd marka farmaajo waxaa oranayaa buuryadaad ku taagaysid hawiye iyo hiraab iyo irir soomaali dee siyaad barro laba xaniyood ahaa oo soomaali dhan ugu weynaa ayaa meesha laga saaray marka waxaan oranayaa ciidan la samaysanayo male waxaa la samaysanayaa ciidan ah si maanta loo gumaysto hiraab iyo irir soomaali waxaa lagu socdaa si ay maalin walba gumaysi ugu jiraan hawiye ay gumaysi ugu jiraan oo hiraab gumaysi ugu jiro dir gumaysi ugu jiro
ciidamada u jeediin ambaanduulahooda waa mareexaan sarkaalka loo dhiibay madaxtooyada waa mareexaan waxay soo aruursanayaan sidii berigii siyaad bare maama khadiijo talinis ayaa la doonayaa in la isticmaalo mursade isticmaalo ra-iisul wasaaraha kale mursadane hawiye meeluu kaga yaallo male marka waxaan ka hadlayaa aniga 12 abriil ciidan soomaaliyeed la aasaasay ma jirin ciidankii gumaystaha ee SOL diligaa la aasaasay maantana ciidankii daarooda rabo inuu soo noqdo waxaasi waa huuhaa haastana Victoria sempre qaqayaasha hiraab ciidan uma baahno hawiye hiraab irir Soomaali nin walbo iyo ciidamada ee qoryaha sita waa wada jifo waxaan nii sheegayaa oo Soomaali u sheegayaa Soomaali waxay ku soo noqonaysaa runta iyadoo ragga la iska celiyo diasporada iyadoo ragga la iska celiyo baarlamaanka aqalka hoose la iska celiyo aqalka sare la iska celiyo ay mucaarad ku shaqeeyaan ay shacabku jidka u soo dajiyaan kuwani ubadkoodu muqdisho ma joogaan kuwani hodheelay ku tuntaan lacagtii canshuurtay cunaan wax walba ku sameeyaan canshuurtiina laga qaadaya ayaa dalka lagu burburinaya imaaraadku wuxuu niyeelaya mal imaaraadku waan raacsanahay waxay arkeen inay tan dowlad ahayn waan raacsanahay imaaraad mucaaradku la shaqeeya mucaaradku fangareeya mucaaradkana waxaa oranayaa ha ka bixina ilaa qaadka imaaraadka la leeyahay ha joojinina isku duubta iska dhiciya kuwan shacabku waa inay jidka u soo degaan diaspora waxay gaareen heer in hablahoodii ay cirbid ku diraan AIDS ah ilmada yareere bajaajkooda war maxaa dhiman waa in raggaa baasaboorada ajnabiga wato waddanka laga saara geeridu waxay dhibtaan nin diyaarad ku yimid ma dhibto nin u soo halgamay waddankii wax walba marka waxaan oranayaa haastana Victoria sempre qaqayaasha waxaan oranayaa 12 April shaqo kuma lihin annaga militariga iyo xoogga dalka Soomaaliyeed nin dhisanay shaqo kuma lihin waxaanu shaqo ku leenahay USC كويسيتي كلاس سيتي رافرتلاس وعشان كلنا SNM كويسيتي كلاس حق الدلك الصومالي لان SNM وايو وشعبك الصومالي لان USC وايو وشعبك مقدشون سكدعية وحاس كدعية هاستلا فيكتوريا سبق مع السلامة